tanaad ee ka soo wareegtay goonisutaaga Somaliland ayaa maanta laga xuseeyay guud ahaanba Somaliland. Magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka dhacday dabaaldegii ugu weynaa iyadoo 10,000 oo qof ay isugu yimaadeen fagaarayaasha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Sidoo kale ciidamada qalabka sida ayaa gaardis ku mareeyay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Hargeysa iyagoo isugu jiray ciidamada militariga, booliska iyo asluubta, taasi oo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ciidamadaasi salaan sharaf kaga qaatay xarunta madaxtooyada horteeda. waxaa iyana isla wadada bartamaha socod ku mareeyay qaybo kala duwan oo bulshada kamida sida ardayda jaamacadaha, kuwa dugsiyada, ururada bulshada iyo wixii la mid ah. waxaa dabaaldegan sidoo kale laga qayb qaatay habab kala duwan oo la yaab leh. waxaa indhaha dadka si gaar ah u soo jiitay awr loo soo xidhay calanka Somaliland oo si xasiloon safafka dabaaldega u mareeyay. sidoo kale fardo si gaashaaman loogu soo labisay ayaa kadla ku mareeyay fagaaraha uu madaxweynuhu salaanta ku qaadanayay. suuqyada magaalada Hargeysa ayaa ceeriyoon ahaa iyadoo dabaaldegan maantu uu ku soo beegmay xilli jawiga magaalada uu aad u fiican yahay isla markaasina xalay ay roobab ka da'een, taasina ay suuro gelisay in bilicda magaaladu aad u qurux badnaato isla markaasina ay u soo baxdo. ugu dambeyn fagaaraha beerta xuriyadda oo ay kumanaan qof isugu tageen waxa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. madaxweyne Silaanyo oo ugu horeyn ka hadlay dalalka deriska la ah Somaliland ayaa waxa uu yidhi waxaanu kor u qaadnay xiriirkii aan la lahayn wadamada jaarka. waxaanu ka hawlgalnay sidii aynu xiriir dhow ula yeelan lahayn wadamada Djibouti, Ethiopia, wadamada Igaad iyo kuwa Carabta. Soomaaliya muddo 20 sano ah Soomaaliya waxaa ka jirtay nabadgelyo xumo iyo kala dambeyn la'aan taasoo gaarsiisay shacbigii Soomaaliyeed burbur naf iyo maalba leh una geysatay barakac aan xad lahayn. arrintan oo saameyn ku yeelatay madaqadan waxay bulshada caalamku marar badan isku dayday in la soo afjaro aafada ku habsatay shacabka. nasiib darro ilaa haddana looma helin xal waara. haddaba waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta Soomaaliya inay u turaan dadkooda, danta bulshadana ka hormariyaan dantooda. xalkuna wuxuu ku jiraa inaad wada hadashaan, inaad isu tanaasushaan oo isku tashataan. dhinaca kalena isagoo fariin gaar ah u diray madaxweynuhu shacbiga reer Somaliland waxa uu yidhi waxaan dadkayga reer Somaliland u sheegaya dadaalka ahakinina hadaalina tacabka labalaba isku tiirsada gacmaha isqabsada oo midooba gobonimada iyo goonisutaaga Somaliland 100 sano hadday gaarayso madax banaanida iyo goonisutaaga Somaliland waa mid aan laga noqon. waana gaari doontaan hibalooyinka insha Allah tacaala. waqtiyada ka mid ah waxaad ka mid noqon doontaan beesha caalamka. anigoo garowsan rajada faraha badan ee xukuumaddeeda laga filayo waxay ogaataan inaanu isbeddelka aynu rabnaa iman karin haddaan gacan buuxda laga helin bulshada, haddaan cashuurta la bixin, haddaan amniga la wada ilaalin, haddaan midnimada la dhowrin. hase yeeshee ninkii korkiisa biyo kama dhowre ninaba korkiisa biyo kama dhowre waxaad ku kalsoonaataan inaanan waxba ka hakara doonin dalkayga iyo dadkayga. shacbiga reer Somaliland ee qiimaha leh ee qaaliga ah walaalayaal waxaan idinku mahadnaqayaa sida aad u ajiibteen baaqiyaal ku dhagii aynu u dooranay sanadkan xuska sanad guuradii 20aad ee asaaska qaramada Somaliland ee ahaa inaynu dareenkeena u muujino caalamka. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo kamira dhalinta himiladeena qaran iyo halganka ugu jiro horumarinta iyo maslaxadda ummadeena. waxaan ku kalsoonahay taageeradeena ummadnimo. waxaan aaminsanahay inaanu ilaahay inoo hiilin doono oo aynu gaari doono mustaqbal fiican insha Allah tacaala. ilaahu ina guulee.
dabaaldegan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee Somaliland laga sameeyo tan iyo markii Somaliland la soo noqotay madaxtinimadeedii sanadkii 1991 Sagal Mustafa Xasan Nuur Universal TV Hargeysa.